بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu dhacday arin aad u cajiib ah oo runtii aanu kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland qaasatan kuwa Hargeysa saldhigga qurac dheer maalintii Jimcihii ayaan anigoo inan dhaawac sida oo u raba dhaawac muujin si aan referta uga qaado saldhiggaas oo ay arintaasi qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarku igu yiraahdeen gaariga baarkin ka dhig halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yiraahdeen dhig baan dhigay inaan yar baa igu soo dhaqaaqay oo ciidanka kamid oo kuwii gaarka ku jiray kuwii kalena meesha fadhiyeen marka askarigii igu soo dhaqaaqay baa igu yiri waad kibirsantay taadeer waan ku aqaanaayo dabeetana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga imada ran halka ka dhaqaajiyo halka dhig arkina maan dhig maxaad kala darta miya kibraniyad baa tahay deegar darra cadaan oo aan miyana kula hayn haystaagin miyana warwal qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga baarinkiisa inuu halkan loo istaagin loo ma istaagin ka talo hay halka ugu tiriimka istaagma istaaga ha maxaa waad edab daran tahay war hay caayna diga edab darane bal waxaan day xijaabkii oo soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yiri war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay isagina day igu dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada buugeedana ku yiri noo kaxee gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay laba askariyo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeeray oo markaa anigu gabadhii uu is qabsanay bay saddexdii askari bad dushiga dilay hooyo gaadhigii iga dambeysay baa iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna seeleedi miyaad dilaysaan tiri iyadina waa la igu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteeda ku dilay hooyadii bay xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keen anaga halkii baan lagu laayay waliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii ciidii yihiin ayaa jiidninkina lagu galiyay gudaha markiina la galiyay gudaha hore markiina la galiyay ayaa waliba naloogu daray in maxaan ku dhahday obiga dhexdiisana lagu garaaco anagu dawarka maanan hayna nin baa markaa lahaa war ka daaya taliyaha saldhiggu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyahay ka daaya ninkan la ka daaya la maqli waayay lix askari iyo gabadhii ay u yeereen toddobadii baa na jilciyay aniga hooyadeena la jiidayo oo marina halka xijaabadan xidhnaana laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la galiyay oo biga markii la galiyay feerjirbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaa inta waxa noo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxa noo dheeray inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyadii gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imka waxa lagu leeyahay dhakhtarka alxayaat socodkan gurigeyga igu timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxay qabto ana kii markii meeshii laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonka dhulka iga dhacay inantii dhaawac ahaydeen wadnii lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xidhay maqsinbaan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meeshii ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timid oo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlina telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaaco waxaan ku waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaa dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uula maadaama jananka Jabuuti ku maqan yahay waxa la ii sheegay in la yiraahdo Cabdi Xasan Qarbash inuu yahay kusimaha jananka
inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo ku-samiyey jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey inta inantii meesha taagnayd baan taga soo diray waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa ooda garays la yidhaahdo waanu xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaana u soconayna waxay ahayd inaanu gabadha muujin u qaadno wixiiba laakiin waxaa kasoo soko martay de gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa wuu ogyahay oo gacan ka simano xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shakhsi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxaa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo laidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga muse xasan kaahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabnana la eegin waa nabarada iyadaa aa arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jirhka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujintayadana aanu hablaha dhakhaatiirta atusnay ay ku caddahay ayaa naloo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqoo quru qabta waxaanu qabnina lama weydiin si ay wax u dhaceenina lama weydiin halka shaqo qudhahaydee la qabtay waxaa idin la ogaada sidaan ku helay telefoonka siday gabadhan telefoon ku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku yidhi taliye maadaamaan anagu ciidankan islaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha dee cabashooyinan dad dhaawaca wax laga siiyo u keennay waxaanu anaa la xidhiidhay janankii markaan wayna janan ku-xigeenkii baan helay adigana sababta iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kale oo aan ashkateeyey iyo cidan meel u marina ma jirto nimankanaana jaray taliyahoodina waa kana wuu taagnaa oo ka daayay buu lahaa isagaanay amar diidda ku sameeyeyna waa kana weydii waxaan ku yidhi telefoonkaygiinbaa prioritiga la siiyey annagii dhammayna dhaawac ahayn iyo hooyadaydii meesha taallay iyo annagii hadlaynay iyo anigii soo cawday iyo anigii u xidhnaa nimankii la dilayna dilay laftoodii midna wax kasoo qaadna laguma samaynin telefoonkiiba muhiimadda siiyey taliyii oo naga baxay subaxii markuu aagu baryay intii uu inankii yaraaye gaadhka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntona loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku idhahdaayey qof noo soo galo oo sidan wuxu qabnana la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu baryay dadkii isku wada yimaadeen faamligii iyo maxaa la yidhahdaayey dee niman kaloo aanu la hadhadalay oo iyaguna ciidan ah waxaa kaloo noo yimid ururka soolja iyo madaxda telefishinka horyaal iyo gudoomiyaha ururka soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha soolja sakariye iyo madaxda telefishinka horyaalo markii aan anagu ka tirsanaa markay noo yimaadeen ee ay maxaan ku idhahdaa inay yidhaahdeen waan u gelaynaana inanka yara gaadhkii xitaa inta liya qaybeedka loogu dhiiba telefoonka wuu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan ula heshay gardarre garab og oo waxaan qabnay baa aan cidi eegin telefoonka iyagii annagii muwaadiniinta ahayna ee soo cabanay ee islahayn dee madax meel ka taraysaa ma jirta janankii baad la hadashay uu maxaan ku dhahdaa telefoonkii naga qiimo badnaaday oon sidee wax u qabtaana la odhan oon rifeertana la siinin subaxii baan ku darinay in rifeertana la siiyo oon idhi annaguna waan dhaawacnay rifeertahana la siiyo taliyininkii oo biig maxaan ku dhahday ku yidhi rifoortooyin si nabaradana habla askarana loo soo diroona eegay sidii baa rifoortooyinkiina lagu siiyey si dhakhtarina cidinamay geeninona looma ogolaanin taliya ku-xigeenkii ciidanku ee markaas saldhigga joogay ee arkayay inay ka daaya lahaa ka daaya wuxuu sameeyey si dembigeegii loo dambebeso in 3 askari oo ciidanka ka mid ah rifeerta la siiyo oo anigii hooyaday oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dembigeega loo dambabasay ciidankii baa rifeerto in la siiyo dhakhtarkii loo diro waxay qabaana soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa
markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kano aan anagu deetana maadaama hooyadii saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabiinan maadaama kiniinaan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaadhkii joogo talakicigeenku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yiraahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyadii saldhigii ku dhex matagaysa waxaan sidiyaad seersanin saldhiga anigu haday aniga ahaan leed kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii iyo xanuunsan oo lix ishaan dhakhtar ka soo sokoynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaadhigaba noo saaran yihiin in maxaan ku dhahdaayay inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo geliyo waxaan sidiyaad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas iman iyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah uma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maaragtay hooyadii ula tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaanu kadinka ka baxno ayaana la ku qasbay inaanu qorno nootaayo aanu anagu dambi geystayaal nahay dhib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waana akhriyay waxaan ku dhimaa anaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada ugu dhufateen idin tuso masaas ay ga rabtaan miidan hablahan jirkeyga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin ma anaga dhibta waxa la yiraahdaa macnaha waa eedaysan qofka qof ka gardarani laakiin dhibana iyo dhib geystay waxa la yiraahdaa nabarada meesha yaal cidda dhibta loo geystay iyo cidda geysatay nabarka markaa meesha yaala ayaa la yiraahdaa anagii baa dhibanayaal nala dhib geystayaal nalagu soo qoray ciidankuna dhibanayaal buu ka ahaa qasab waxa nagu noqotay intii nalaga saxeexo dhulkii nala jiidayna waa kan naga muuqda iyo sidii saldhiga noogu xareeyay iyo in feerjiribna lala dhacay oo sidii raggana loo laayay kuwaas u saalan kuwa jirkeyga ku yaala telefoonkaygan ka tusi karaa cid kasta u baahata waxaan ugu dhacday waxaan inaba caadi ahayn wixii nagu dhacay waxa soo soo maray xilligii laga wada hadli lahaa iyo xilligii gurmad iyo gargaar noo iman lahaa daanigu cid kaleba maan filin maadaama jana ku xigeenkii ciidanka Cabdi Xasan Qarbash garaacay oo waxaan isna dhaba telefoonkayga yaalo oo haddana intii musaxsanka ay noo yimid telefoonkayga la garaaco waa nambarkaaga iyo keenta la iguro maxaad qabtaa iyo adeer sidee wax kuu gaadheen iyo ku dilay iyo miyaan meesha tariyuhu joogin iyo midnaba aan wax ka soo qaadan ka sameeyne de gacan ciidan nagu dhacdo dabeetana waxa igala weynaatay in ciidankuna dilay waxa igala weynaatay inaan janankii nambarkiisii helay oo nafka la gaadhay oo anigu dibi ku soo noqdeen aan waxba kala la ii tarin ciidankii waxaan u arkay gardarre garabka yogina waa janan ku xigeenka ciidanka oo aan anigu la hadlay oo aan waxba kalena loo qaban markii dambana lagu qasbay si aan hooyaday ula tacaalan cisbitaal oo la helo idinka gurigeyga yimid hooyaday waxa lagu la maqayaa xayaat cadeynteedina waa idin soo bandhigaya si aan ula tacaalo hooyaday aan abaal ku qabay inaan dibgeystaha anigu ahay bilowgii inaan kayri garasho uu garanayo iyo ciidankuba naloo dilay oo nala yidhi inayro kibraaniyada baa tahay dee bal anigu waxaan ciidanka ku sameeyey iyo waxaan qaranka ku sameeyey iyo waxaan ku dhimanay iyo maxaan ku dhahdaayay waxaan gaadhay ciidan u raacayno haddaan inamadii raasi shakhsiye iyo reerahoodii u raadsanayno iyo haddii ciidanka qaranku dhibtii nagu dhacday qaadanayo anagu ciidanka qaranka waan ku soo yeeranay oo dad bukaan u keenay oo nabar ku dhaceen markii dambana anagiiba janankii ku sii yeeranay oo isniiri maxaan ku dhahdaayay muwaadinad batay wadankeedii joogtay ah lagula tacaalay janankiina waxa soo dhabankayga waxa ku yaala waa dharbaaxooyin rage waxaan si degdeg uga filaynaa inay noo soo jawaabaan ciidanka qaranku cid kalaba ma filayo in jananka ciidamadu haddii wadanka ku soo laabtay walawaanan xog waynin uu noo soo jawaabo haddii kalena dee warbaahintu ka arki doona waxa nagu dhacay waxaanuna marti uga nahay inuu halkaa noogu yimaado waxa nagu dhacay nala eego waxaanuna marti uga nahay inta ku xigeenkii ciidanka in ciidanku amar diido ku sameeyey oo maxaan ku dhahdaayay wardaay lahaay nala deyn waayo nala dilay naloogu dhaariyo hadii ay maxaan ku dhahdaay nala deyn waayo 7 askari na dul mareena oo isagu marag noo furo hadii ilaa anagu ciidanka nimada shicib la isku ma dhaxlayna saldhigaan isku laynay hadii maxaan ku dhahdaa oo lagu dhex dilay hadii ay maxaan ku dhahdaayay anagu dambiga leenahayna laamaha cadaaladda nala waafajiyo hadina laga gardaran yahay in inta nala dilay waliba qolna lagu xidhan waliba janankii garaacana waliba anaga nala baadho ka xabadkii inay dabada uga soo gashay hooyadii la diido
annagina maxaan ku dhahdaa sidaa dhabankayga iyo jirkayga ragu galo nala dilo hadday dawladdu daacad ku tahay oo sidaa rabto oo la isla ogyahay oo ilaa jana ku xigeenka ciidankan u dacwoonay war degdeg oo aanu shakhsi dadku weerarsanayno hana loo soo sheego on reeroogi iyo garaadsanayno haddii aanu dawladda cabadayaal u nahay oo aanu dawladda dhibanayaal u nahayna dawladda jawaab degdeg ah hana soo siiso fariintaydana waxaan rajaynayaa inay gaari doonto jananka ciidamada iyo cid kastoo ay qusayso waa ay tay jananka xigeenkii wadanka jananka ka sii ahaa arxanba kalamaanaan kulmin jilbahana hoolan cid kastoo cadaynu baahata waan u haynaa jilbahana hoolan gacmahana hoolan jirkaana laga dilay sidii wax maaragtay cadaawo ah oo la garasho dilay waa hooda garays bay isku hayn markay dilayeen timahayga safaraa kula tegeen timahayga bifaraa kula tegeen marka haddii ay maxaan ku dhahay dawladdu waxaa kula socoto oo lagu wada socdo war cadaan ah nala soo siiyo oo aan anagu deeskayo wax u qabno haddii si aanu dawladda dhibanayaal u nahay markii horena aanu xarun dawladeed nimid oo aanu xarunta dawladda ku soo eeranay oo aanu dawladdeedii u nimid oo aanu islahayn waxa la idiin qabto oo markii dambe aanu janankayga la hadlay wixii nagu dhacay oo waxba nalooga qaban waayey dee anigu meel ay ka socoto madax meel ka sarreyso la salaaxaa ma jirtee meel ay ka socoto maanta u dacwoono oo nabaradeeda u bandhigno oo aanu maxaan tolay nidhaano waxaasaa nagu dhacay waxaa kaasaa u sahlan nabarada jirkayga ku yaal safayn baana lagu dilay inaanu namad yarraay namadeeda u dirno waynu heli karnaa saldhig waa kay xaafadayada inaanu si kaloo maxaa la yidhahdaa waanu intaba waynu heli karnaa waxaasaan rabnaa bal cidda ka dhiman laamihii cadaaladda maadaama jana ku-xigeenkii gaadhnay cidda ka dhimanna inay arrinta nala ogaato waanan wadayaa mar qura ma aamusayo inta arrinkaygu meel lagu tiirinayo ee hooyadayda la dilay qaliin baa lagu samaynayaa hooyaday 6 habeen baanu magaalada joognaa dhakhtar baan ka keenay waxaan ku feer jirib iyo hidh baa lagu garaacay inta qolkana lala galay baa gacan ciidan ilaa aan baralaati noqonay aan laga tagin intii aan firfircoonayna ay daanan nala jilcinin baa dhulka nala jiiday markaanu galay maxaa la yiraahdaa qolka oo biigana feer jirib iyo hidh inta naloo xidhay maxaabiista meesha ku xidhan baa noo maraga intii dhulka nala soo jiiday wixii nagu dhacayna markii meesha nalagu xidhayna taliyaha noo maraga kitaab quraan aan ku marinayna inaanu oran ka daayo oo wixii nagu dhacay u taagnayn oo sida ragga inta timahayga taana loo qabto sida calooshayada iyo dhabarkayaga calashaan ciidamada booliisku waa ciidankii dawladda ka dhex yimiday waa ciidan dawladda u xil shicibka u xil saaran shicibka la'aantoodna wax ma noqon karaan ciidanku qoriga inanka yaraa ku qabsada nin iyo nin labada gacmood isula yimid bay noqon karaan family ahaan baan u qabsan karin isla qurac dheer shalay markii inta hooyaday lagu dhex dilay nimadeedu banaanka ka joogani hooyadina dhiiga tufaysay gabigiisaan la wareegi karnaa in yar walba in yar qori loogu diri karay laakiin waxaanu niri bal waxaynu ku dhacay waa aragtaa inaan inagoo diloon noqonin dad iyagii dilan haddana laga gar helo cid kastoo noo timid waana laga ilaaliyay xabadkin inay noo soo gasho waana laga ilaaliyay 48 saacadood inaan musqusha tagno waana loo diiday 23 saacadood baan u jeedaa 23 saacadood dinka ka jardo 23 saacadood inaan xorriyad musqusha ku galno waana loo diiday inaan maxaa la yiraahdaa kanina loo keenay waana loo diiday biina loo keenay waa la ursaday si meesha duqaan bay leedahay in gas ay tahay la ursado gaasta liido ka kala yaa maxaabisti meesha noo sheegtay waxaan la dhaqmay naadantinimada ka baxsan waxaasna anigu waxa ugu badan inuu aanay wajin ku xigeenka ciidanka wixii nagu dhacay markay nagu dhaceen hadeenu cadaalad heli lahayn isagaan u dacwoono kaaleedaan ku banaalaay hadaan cadaalad heli lahayn maanaan damqanin oo axmaanaan nidhaahnin laakiin marka telefoonkayga aan meesha ku dhaxaystay waa gabadh calashan warbaahin ka shaqeysa oo telefoonkayga dibtiina haysatay ka saameyn batay dawaan dabqanay mar qurana aamusimeyn intan waa sahaalay ururka saxafiyiinta Soomaaliland bad magacowday inaad la xiriideen markii aad la xiriideen maxay sameeyeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland marka hore sidoo xeerku yahay waa inay meesha hawshu ka dhacday yimaadaan oo ay la xiriiraan cidii madaxda ahayd haysatay si ay u hubiyaan wariyaha laftiisu inuu dambiile yahay iyo in wariyaha uu dhibanay yahay oo dambi laga galay sidii bay sameeyeen oo saldhigi bay noogu yimaadeen si daadad qaldan tahay oo adreerkiina reer islaynayaan raacday warbaahinta kuma difaaci karto laakiin marka aniga la igu hooda garaysay waan ku naqaanaa waad kibirsan tahay meeshii lagu dilay aan xire ciidan nimid aan anagoo cid soo laynayna keenin aan gaarigayga lugahayga ku tagay waxaan xaq u lahaa in la ii hadlo la yiraahdo maxay sameysay maxaa lagu dilay ku dhinteen waliba anigii hooyadayba
markii ay yimaadeen ay yidhaahdeen waxay qabtaan oo eegno waxa loo diiday inay iba soo galaan inanka yare kadinka joogaya askarigii wuxuu yidhi maba xitaa taliyaha qaybta inay telefoonka ugu dhiibaan bay dooneen waad weydiin kartaan Soldier iyo madaxda telefishinka horyaalba waa laga diiday waxa la yidhi ma galaysaan telefoonkana ku hadli maayo marka ma waxay idin sheegeen wax ka gaaro aan intan ahayn baa jiro idin dhex maray markii hore de wallahi anigu wax horo dal ciidan baan ahay dadka ciidanka kuma soo degdego kuma jiro dadka qaar baa laga yaabaa inay ciidanka isaga kibraan iyo waxaas anigu wax gaar ah oo aan ciidan weligiiba de ka galay iyo waxaan qaranka ka galay toona garan maayo oo aan ahayn in maxaan ku dhahdaa deynamadu ilaahay wad kibirsantay kibirkan meeshan ku galay baan xitaa garanaynin waad kibirsantahay askariga ay taliyuuna uu maqlay dadkii meesha taagnaana way maqlay waana ku naqaanay inay kibirsan baa tahay bal waxaan ku kibrayay aan sameeyay la rabo maxaan ku dhahdaa ilayga rabay aan ku wixii waxay gala cuslaatay waad kibirsanayde waad kibirsanta waan ku naqaanaa hooda garaysay ayaan horta ku dhintay oo lagu dilay hooyadiina qof ilmihiisa saddex askari ku fadhiisteen ay noqoto way adkaysan weydo waarnanta iga dilna marka tiriyadina waa la igu daray markii dambe inta qol nalala galay oo bigo albaabka naloo xidhay ayaa feerjirna lagu garaacay marka de wax anaga hore oo anagii ciidanka noo horeeyay de iyaga la weydiin doonaa leeyahay arrinkan marka sababta macnaha sida lagu sii daayay ma qaab dhaqan baa lagu sii daayay qaab nooceeya lagu sii daayay oo saldhigaad uga soo baxday waxaana lagu sii daayay qaab dhaqan markii horeba horta aniga familygayga oo dhan way yimaadeen xildhibaanana way yimaadeen si ay damaanad noogu qaadaan laakiin waana la diiday waxa ugu badan in lagu sii daayay in looga faa'iideystana waxa weeyaan horta iyaga maslaxad ku qabay iminka ciidanku inay sii daayaan cadeymana waan u hayaa iyaga maslaxad ku qabay ciidanku inay sii daayaano waxay rabeen si aanay arrintan u bixin oo aanay maxaan ku dhahdaa meel u gaadhin ila waxay ogaayeen qaladkoodii iyo wixii jirdilka nagu dhacay markaas aanu arrinkooda u bixin iyaga horta in la sii daayay mas'uuliyadeeda qaaday marka koobaad oo idii waa la sii daynaya taliiban oo imid ugu yiri aniguna waan iska dakayn lahaa waxaan oran lahaa halkaas aan ku jiray waxaan ku dhimanay iyo wixii saan loogu galay hal la keenay iyo wixii nagu dhacay waxa meesha igula jirtay hooyadayo aniga bay iga dilnin badan oo marka horena xanuunsanaysay oo feerjir biyo hil lagu garaacay oo nabaradii ku yaalaan oo sida ragga loo dilay oo safeen ciidanihi maray oo saldhiga ku dhex matagaysay oo naloo diiday dibadana looga keeno kinina ay liqdo gaarka waxa ku jiray dadkii aan markii hore islaynayo in duciga ban ugu ahaa kuwii uun baa diiday in maxaan ku dhahdaa ilaa subaxii iyagu ma gaarka ku jiro lama kala wareejin kuwii uun baa diiday waa kuwan Soldier diiday waa kuwan cuqaashada diiday ku sheegayo waa kuwan diiday maxaa la yiraahdaa in de meeshii aanu layda soo baxnay iyagu baa iskood noo sii daayay oo yidhi maxaa la yiraahdaa idinkan waa la sii daynayay wixii qabteen qaata ciidankuna waxay qabeen ha qaataan laakiin waxaan ilaahay baa horta mara gale waxaan de cid kastoo qusaysa halkan u marinaya laba dumar oo waliba la kala hor qabsadoon isku mar gacanta qaadin anoo leydilay hooyaday timid oo midna saddex ciidan dusha kaga yimaadeen tii kalena markay tiri waarinanta iga dilina saddex kale iyadina qabteen intay gaarsiin karaan 7 askari 7 askari waxa kamid ah gabadhina dhirbaaxday waa iyadu halka intay soo istaagtay lagu rikxay oo bilaadiriis ahayd oo dhirbaaxday iyadu ayaa kamid ah laakiin 6 askari oo rag ah ayaa isna jilciyay oo saddexdii dilay baa anigu markay isu yeeranayeen magacyadooda maqlayay Cabdi Xamiid iyo Umar Iid iyo Rabiile oo akan marka ugu horeysaba nagu soo kacay aniga ilaha wada dab daran tahay waliba aflagaadooyinkii noo geysteen rag baa maqlayay iyana aniga ilaha in yaro kibirsan baa tahay marka bal ciidankiina dhibanayaal baa laga dhigayo referta la siiyay si dambe bas loogu sameeyo ciidankiina waxay qabaan hala yimaadaan laamaha cadaaladda annagina waxaanu qabno waanu la imanaynaa bal hadii lagu wada socdana waanu arki hadii ay tahay unde xeradhan oo qaldantayna waa xeradhan oo qaldantay taliye xigeen taagan oo ana markiisa la qaadanay hadii taliye xanuunsanayo meesha taliye xigeenkii baa taliye ka isagana taagnaa kadinka waxaan ugu nimid istabta ugu horeysay barkii ay nimadu najiidanayeen war dumarka sii daayay bulaha de hadii uu taliye ay arrinka lagu wada socday
oo ay ka midaysan yihiin hablaha la laayo dumarka la laayo dadka la laayo oo ummadda la isugu tago safayn lagu dilo de waa iyadu waa mid gaar ah haddii se ay tahay in maxaan ku dhahdaa de ciidankaasi qaldamay oo gaf iyo gardarrana lagu dilay oo jananku xigeenkiina tallaabadu qaaday tan tahay in la sii daaya xitaa halkaasay ka soo fulaysaa si nabaradayadan iyo xaqayagan loo duujiyo dulmi meesha uga dhaco marka haddii arrinkaa lagu wada socdana dee waa arrin aan ogaan doono haddii se aan lagu wada socon oo meeshu ay maxaa raka kala sarrayso leeday oo cid loo cadaalad doonto leeday oo cid loo cawdo leeday oo cid dadkay hagardaamooyinku gaadhaan ku soo hirataa meesha jirto anaka waxna loo qaban doonaa waa gartay ururkii soolja markii loo diiday tallaabadii xigtay ay qaadeen inay warbaahinta ama la hadlaan ama madaxda kale dowladda la hadlaan taasi miyaanay samayn maya tani ku-xigeenkiiba ka hor yimid oo yidhi soo hodo ma socotaan haa hooda imikaanu sii daynaynaa waatan arrinkeedii waan u taaganahayba waa markay intee in leeg taagtaagnaayna banaanka lagu hayay waxaan u malaynayaa inay subaxii yimaadeen shabagan kasoo dhex harkeyna lagu xidhay waxaan u malaynaya inay subaxii yimaadeen 8 iyo dheeraad xilliyada ay meesha ka tegi doonaan ay taagnaayna waa salaadii duhur annagana waa tan iyadoo iyagii la yidhi waa la soo daynayaayo anigoo aan idhi nabarraan qabaayo laakiin waxaan ku qasbanahay baan ku yidhi waan la hadlay guddoomiyaha soolsha iyo guddoomiyaha telefishinkii horyaalba waxaan ku qasbanahay inaan meeshan ka baxo wax gardaraday doontaa ha igu dhacday oo ay tahay hooyaday xalay oo dhan bay ku dhex matagaysay maqsinkan shabageli in la meelay kasoo galaysaa jira waana nala dilay ciidankaana dilay cid kale ismaanaan laynin marka anaga lafteeda wuxun baa naloo xidhay oo wax walba naloogu diiday si aanu laydhaabaa lagu qabno waanay dhacday marka mar haddii layidhi waa la soo daynaya dee dib iyo nabaradayadii inaanu cadayno iyo in maadaama aanan markii fidhiyo duubin aanay markii dee balaayo aanan dad ku talagalay ahayn oo cadayma aanay haynin soolja dee dib wixii aanu kasoo cadaysano iyo waxaana lagu xidhay labadaba inay ogaadaan unbay oy ka hadlaan unbay muhiimadu ahayd labadiibana meeshii markay yimaadeen nabaradayadii way arkeen anigii hooyaba waxaanay yidhaahdeen de haddii laydin sii daynayo waxa qabtaan un soo cadeeya ciidankiina waxaanu abaal ku qabnay inayna yidhahdaan waxaan qabtaan isu qaba waxaan qabnona aan isu qabno laba dumar intay 7 askari gaarsiin karaan oo weliba xijaabka intayna lagu baktiyay markii dambana laga saaro timahana la jiiday marka horta ilaahay baa xaqa qaada laakiin soolja nooma yaraysanin iminkana waa weydiin kartaan gudoomiyaha horyaalo noo yimid iyo